السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تواصلوا مع الموتيفيشن بودكاست وحيد مسعود يعني واستاذ عبد الرحمن عيديد. barnaamijkeena maanta ayaa waxaan ku soo qaadanaynaa 10 calaamadood oo lagu garto saaxiibka xun amba saaxiibka toxiga ah. saaxiibku wuxuu nagu leeyahay saameyn aad iyo aad u fara badan. ma jiro adduunka qof fiican oo saaxiibo xun leh amba qof xun oo saaxiibo wanaagsan leh. saaxiibkaagu wuxuu yahay ayaa tahay waxaa la yidhahdaa qof kasta waa isku celceliska 5 qof ee uu nolosha waqtiga ugu badan la wadaago. haddii calaamada koowaad aan soo qaadano waxa weeyaan waa calaamadan wada naqaano dhammaanteen. saaxiibkani amba qofkani waxa uu kula soo hadlaa oo kula soo xidhiidha marka wax kaaga baahan yahay, laakiin kulama soo hadlaya amba kuma odhanaya iska waran sidee tahay caafimaadkaaga ka waran, noloshaada ka waran, maxaa kuu soo kordhay, maxaa kuu qabsoomay, oo kadibna telefoonka iskama dhigaya. Simply waxay kuula hadlayaan marka ayagu ku rabaan ee wax kaa rabaan ay ku isticmaalayaan. sidoo kale calaamadka lagu garan kara waxaan haba kula soo hadlaane amba markaa wada hadlaysaan amba xiriirkiina saaxiibtinimo guud ahaan marka la eego maaha mid equal ah, ama macnaha relationship marka lagu leeyahay xiriir equal ah dadku ku jiraan amba saaxiibahaadan amba nolol ha wadaagaan. waa saaxiibkani mar walba wuxuu ka hadlayaa dantiisa, waxaad oofinaysaa dantiisa isaga amba iyada ayaad caawinaysaa. dhibaatadeeda ayaad ka hadlaysaa amba dhibaatadiisa ayaad ka hadlaysaa. mar walba xiriirka saaxiibtinimo ee idinka dhexeeya inta adigu aad isticmaasho in ka badan ayuu qofkani isticmaalaa. marka idinkama dhexeeyo xiriir dheelitiran ee waxaa idinka dhexeeya xiriir uu isagu ku nooliyay oo isticmaalo adiguna aad wax yar ka isticmaasho amba aanad waxba ku lahayn. sidoo kale waxaad arkaysaa qofkani inuu dadka hortooda aanu ku taageerin ee uu kaaga baxo amba ku qasaysiiyo amba ku xasuusiyo wax ku niyad jebinaya amba sir aad leedahay ciyaar u sheego amba uu aadir qosala uu hoos kuu dhigo. adma marka qaar dareenta markaad gruub kala nooshihiin macnaha saaxiibkaas inaanu ahayn saaxiib ku garab taagan ee uu yahay saaxiib kaaga baxaya amba ku qasaysiinaya amba aan kuu hiilinahayn amba haddii qof kugu soo booda aan macnaha meeshaad garabka uga baahnayd markaad dadka hor joogtaan had iyo jeeraale meel ayaa maqan oo wax ayaa daloola. arrin kaloo aad iyo aad u muhiima ayaa waxay tahay waxaad dareentaa si xun marka aad waqti qofkan la qaadateen. macnaa haddaad telefoonka maanta o dhan aad la hadasho ood la sheekaysato ood la qosasho, telefoonka markaad dhigto waxaad dhigaysaa adigoon qoslayn oon faraxsanayn oon habi ahayn. calooshaada ayaa mar walba wax kuu sheegaysaa there's something wrong marka qofkaa la hadashid eed waqti la qaadato ambaad macnaa mar walba waxaad dareemaysaa ma dareemaysid farxad markaad waqti wada qaataan, hadday ay tahay idinkoo israacayaanba meel wada tegayaanba isla kulmay amba xataa telefoonka aad kala hadashay. arrin kale aad iyo aad u xiisa badan ad ku garanayso qofkan toxiga ah amba qofka xuni saaxiibkaaya ayaa waxa weeyaan wuxuu kugula jiraa tartan cajiiba oo la yaab leh ayuu kugula jiraa, oo xataa marmarka qaar nacasnimo ah oo laga yaabo wax yar oo doqoninimo inuu kugula tartamsa dharkaad xiran tahay, waxaad cuntay, waxaad tidhaahdo. tusaale ahaan haddaad tidhaahdo anigu fardahan jecelahay, farduhu xayawaankii xayawaanadan ugu jecelahay, laga yaabo iyaguna inay bisada jecel yihiin, laakiin dhowr isbuuc kadib haddii kelmadaas ay soo noqoto mar horta xayawaanka adkeed ugu jecesho hadii la isweydiiyo macnaha wax mala yacni oo qofna qof inuu kula tartama amba koobiyeyaanu baahnayn. exactly waxay odhanayaan wixii adigu aad tiri markii u dambeysay, waxay ka odhanayaan aniguna faraskan jecelahay. haddaad tidhaahdo waxaan jecelahay casaanka, midabka casaankan midabada ugu jecelahay, oo dootana iyaguna ay jecel yihiin mataqaanaaye cadaanka macnaha laba midab aad u kala fog muuqaal ahaan, inay dabeetana ay maalinta dambe yidhaahdaan amba ay aad aragto iyagoo noloshooda budo anigana midabkan adduunka ugu jeclo casaanka. hadday waxbarasho noqoto, hadday hadal noqoto, hadday qurux noqoto, hadday qoys noqoto, hadday noloshaada noqoto, mar walba waxay kugula jiraan tartan. sidoo kalena waxay koobiyeyaan waxyaabaha aad samayso oo dhan, oo marka qaar waxaad moodaysaa inay kuula nool yihiin amba ay kuula saaxiib yihiin, inay kaa qaataan tibiska iyo qaabkaad noloshaada ugu nooshahay oo dabeetana iyaguna isaa ugu noolaadaan. waxyaabaha kale ay sameeyaan saaxiibada toxiga ah amba aadka u xun ayaa waxa weeyaan
macnaa markaad faraxsan tahay happy kumaaha ma kulama faraxsana kumana taageersana. si kale hadii loo dhigo markaad murugeysan tahay way kula joogaan, way kula hadlayaan, way ku sheekeynayaan, way ku taageerayaan, waad maqlaysaa. laakiin markaad faraxsan tahay sida ay ku taageerayaan markaad murugeysan tahay kuma taageerayaan. sababta haddaad murugeysan tahay wax culays ayaga kuma hayso, laakiin farxadaada iyo guushaada culays fara badan ayay ku haysaa. saa darteed markaad murugeysan tahay aad mar walba aad ayay kula joogaan, laakiin markaad faraxsan tahay dhawaaqooda ma dheera. dhawaaqo ay kugu taageerayaan wuxuu ka dheeryahay marka aad dhibaato dareemiso, markaad farxad dareemiso, laakiin aamusnaan badan baa jirta. waxyaabaha kale noloshaada ay dhibaatada u keeni ay saaxiibadani keenaan amba toxic friendsku ay sameeyaan waxaa kamid ah inay noloshaada dhibaato kasta iyo daraamo kastoo ka dhacda iyagoo ay sameeyeen oo ay sabab u yihiin, amba iyaga soo martay, amba si uun ay ugu dhex jiraan. marka yani wax kastoo noloshaada dhibaato kusoo kordha amba waa ka mid, amba waa ku jiraan, amba dhinacun bay kasoo gadayaan. marka aad maqan tahay iyo marka aad joogto isku si maaha saaxiibadani. wejigaaga sida ay ku yihiin markaad meesha ka maqan tahay sidaa kuma aha. si kale hadii loo dhigo waxaa la yidhahdaa qofku haddii uu kula xantay maanta beritolan adiga ayuu ku xamanaya. marka qofka saaxiibada kale hadduu mar walba kula xanto oo inuu qofku wax kuu sheego, saaxiibada kale informationkooda kuu sheego oo kula wadaago, iyo inuu kula xantaa waa laba arrimood kala duwan. qofku marbuu kuu sheegi karaa sasa dhacday for a good reason, macnaa sabab fiican darteed inuu wixii ku ogeysiya amba kula sheego amba kula sheergarayo kula wadaago gruupka saaxiibada dhexdooda waa okay. laakiin inuu qofku waxaan shaqadiisa ahayn adigana shaqadaada ahayn qof kale noloshiisa ah waxay kugu soo kordhinaysaa aana jirin informationka aanad u baahnayn inaad ogaato, noloshaada aan waxba ka bedelahayn, uu qof u sheego ku yidhi noloshiida waxaa ka mid ka amaadii kula wadaagay ku dhaafin, uu dabeetana qofkaas ku sheegay waa toxic, waa qof xun, waa saaxiib aan fiicnayn. sidaa darteed haddii qofku adiga maanta dadka kula xanto oo kaaga sheekeeya saaxiibada kale dhibaatadooda iyo noloshooda oo kusoo mataqaana uu noqoto qofkii uu u sheegayay qof uu ka jeceliya amba ka dhow matihid shaqada u qabtaa waa inuu sheego. saa darteed dadka marna waa u sheegaya marna waa ka sheegaya. marka maanta loo sheega haddaa tahay birtoo laga sheekeeye ayaa tahay. saa darteed waa saaxiib markuu kula joogay markuu kaa maqayay laba qof oo kala duwan ah. saaxiibtinimadiina ayaa waxaa kaloo aad dareemaysaa inay tahay conditional ama mid xidhiir ku xidhan shardi inuu yahay. labada qof ee saaxiibtinimada waxay ku xidhantay wanaag iyo ixtiraam iyo kalgacayl. saaxiibtinimadaas xataa haddii ay dhamaato labada qof iyagoon xumaan isku haynaya dhamaata. oo waxyaabaha keena inay saaxiibtinimada wanaagsan dhamaato waxaa kamid ah labada qof inay weynaadaan, inay nolol samaystaan, inay wadanka ka kala guuraan, dabeetan labada qof uu wanaag ka dhexeeyo, wax cuqdad ah amba cadaawada iyadoon jirin amba sir laysku sheegay oo qofkan uu ka ogaa aanu kuga cagajugleynhayn ayay noloshaasi dhamaataa. dadna labada qof si wanaagsan ayay ku kala tagaan. hase yeeshee qofkan saaxiibka xun ah ama toxiga ah wuxuu ku xasuusinayaa sirta uu kaa hayay, waxaad ka baqanada sirta uu kaa hayo. asaga inaad sir ka haysanaynta badan waa qaliil amba way yar tahay, sababtoo ah maaha saaxiib daacada oo marka hore noloshiisa kugu aaminaya, waa saaxiib iska dhigay inuu daacad yahay suu noloshaada uga qayb noqdo. saaxiibkan ayaa waxyaabaha kale lagu yaqaana waxaa kamid a markaad u baahan tahay inuu mataqaanaa inaanad helin. tusaalaanta tira maanta waan guurayaa berito lan guuraya kaala alaabta ila rar ma helaysid. haddaad tiraahdo halkaalkaasan macnaha wax kastood uga baahato marka aad u baahan tahay saaxiibkaas amba waa mashquul amba sidii aad doonaysay in uma helaysid. calaamadaha saaxiibka lagu gartaa runtii aad ayay u fara badan yihiin, laakiin tii ugu horeysay ayaa kamid ah in qof mataqaana uu kugu leeyahay saameyn fara badan oo aad arkayso noloshaada inay mar walba xun tahay, oo haddaad saa noloshaada wax ka bedel oo wanaaji maskaxaada waxa kusoo dhacaysa mar koobaad inaad iyaga goyso, haddii kale waxaa sii soconaysa dhibaatadii. mataqaana yani marka ay sameynayaan qorshe oo group saaxiiba ah ay israacayaan amba la kulmayaan amba groupka ay wax ka dhex dhacayaan amba wax laysku ogyahay, waxyaabaha caadaystaan waxaa kamid in aday kaa saaraan oo qorshaha kaa ilaabaan amba ay saaxiib kale ka saaraan. in aday kaa saari waa in qof kale ka saaraan qorshihii ay ka reebaan. taa micnaheedu waxa weeyaan amba lagu sameeyayaa tahay amba loo sheegayaa tahay. marka haddii maanta lagu sheego bir ayaa lagu sameynayaa taa laftigeeda.
isku soo duubo qofka saaxiibkiisa inuu xusho waxa ku xidhan noloshaada, waxa ku xidhan horumarkaaga, waxa ku xidhan fayadhowrka iyo fayaqabka maskaxdaada, waxa ku xidhan kalsoonidaada. oo sababtoo haddii aad qof xun la saaxiibto waxaa laga yaabaa culays fara badan inay kuu keento, sir aanad u rabin inay kaa baxdo dabeetana noloshaada ay qoomamo ku noolaato. ilmahaaga haddii aad waalid tahay way saameynayaan oo saaxiibkii ayay la kulmayaan. doorasho kastoo sameyso waalid ahaana ilmahaaga waxay u tahay barbilow, oo haddii saaxiib tahay, haddii guur tahay, haddii wax kasta tahay, meesha aad ka taagan tahay waa barbilowga ilmahaas. ama uu ka fiicnaanaya amba uu ka xumaanaya hadhow toole markuu weynaado, laakiin waa barbilowga ilmahaaga noloshiisu waa sida adigu aad u nooshahay. mawduuca maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. waa inoo iyo isbuuca dambe insha allah biidnillaahi kariim. aad iyo aad ayaan idin salaamaya. waxaan rajeynayaa mawduuca aad ka hesheen. fikirkiina waxaad iigu dhaafi doontaan meel kasta oo aad ka dhageysanaysaan halkeeda hoose. aad ayaan idinku mahad celinayaa, waqtigiina waa idinka mahad celinayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.